الراديو دنوان سلامية أيضا مع الشعب الصومالي isqabqabsiga dastuuri weeyaan waa sharci u yaalo xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed isqabsado waxaa lagu kala baxaa waa cod dalkan wuxuu leeyahay dastuur baarlamaankana xeer hoosaad ayuu leeyahay marka waxaa lagu kala baxayaa waa cod wax dhibaataana ma jirto dhammaan shacabkana waxaan ku sheegayaa in la dejiyo laga warsugo xildhibaanadooda inta badan oran lahaa halka waxa waaye hortore xildhibaanadii baarlamaanka xildhibaanadii qaranka Soomaaliyeed iyo guddoonkoodii hadday isqabsadaan shaqo ma socon karto halka marka wuxuu noqday 107 xildhibaan ayaa waxay keeneen mooshin keeneen uu ka baxo xildhibaanada laga qaadi maayo waa xildhibaan qaran laakiin guddoonkii afhayeenka uu ahaa xildhibaanada iyo baarlamaanka ayuu ka dagayaa meeshaas oo sharcigiisa shaqadiisa shuruuci badan ayuu ku gafay xeerarka ayuu ku gafay dastuurka ayuu ku gafay waana la hayaa mar rab inaan hor dhaco ilaa la qaybiyo mooshinka dastuur buu dalka leeyahay oo dib loogu laabanayo qodobo waxaa jira kala xadeynaya shaqooyinka hay'adaha fulinta iyo sharci dejinta ee dawladda maxaa hortaagan in dib loogu laabto arintan sii soconaysa iyo jahwareerkan jira la soo afjaro وأفكر مثلا هدي إلهي لا شعبكنا هندور سجان أنا ما دونينا وما دان ودارنا إن دبعتو سيكشوا شعبكنا بين وشيء وديراجو دبعتا على ثمانية لا يدعس نشان لوتين مدحوينه يزوري ورث وسارة أي إسقطين وأنا كحيني وما هذا ما ده إسقطان فلنتي دولة إسقطت وإن قفكي كردرن أما قفك عضلة أما قفك دباتة وضعيان لإيجا مركز سلا وصان وحان أقرني إن حلبانة إيو قدونك وحلقه إيو حلبانة المجارتي إن قدونك فدود يهي وأصدقوا كدودو مركز شرعي نابك سلا سوا فكلا بحينا واحد باتان مجرو شروع دي شرعي نوديغا وقضين أنا وحكلا بارمان كمان شقينو وحوان دينا وحوان يالنا قفبان بحنا قفبان كنا شرعيا شقدني واي بروسيجركا على مراي marka hada jawaari waxa keeni kara oo ku kala tahay xildhibaanka waa shaqadu adiga hada wari waxaan ku dhigi karaa ani kaliya wareysomada wareysan hay markaan isleedahay waa shaqadoodii kulan baa dhici doona jawaari oo uu hadlay khudbad soconaysa muddo 11 daqiiqo ayuu jeediyay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahana waa uu eedeeyay marka kulankaas maxaad ka qabtaa warajo ah maxaad caawa ka leedahay baarlamaanka horena furnaa waana furan yahay falfadhiyadeenu ka mid yahay berri waa fariisanaynaa wax dhacayo dhibaato ahna ma jirto marka xukuumad iyo madaxweyne iyo meesha aniga kama hadli karo aniga xildhibaan baan ahay baarlamentary su-aashaasaan jawaabteeda leeyahay marka wax dhibaato u dhacaysan male umadana u sheeganaysan waxba dhacayno dhibaata ninkan cod buu ku yimid hadda cod waayana anoo kale u noqonayaayo way ag fadhiisanayaan shacabka waxay cabsida ka qabaan oo ay ka walwalsan yihiin waa kulamadiina la iclaaminaya la baajinaya shacabku maxaa loo sheegaa fariina shacabkeena waa matalna waxaan u sheegaynaa inaysan jirin dibna dhacaynin baarlamaankaas dhexdiisa ayaan ku doodaynaa hadda qofkii handadaad iyo dhibaato wadana waa la arki doonaa laakiin ummadaan ay soo daashay mana rabo in daal la sii badiyo jawaari sharci daro ku tilmaamay kulanka berita ah sida ku qabsoomaya jawaari moojina laga keenay hadda adiga waxaa tahay haddii dadkii kula shaqeynayay aadna wada shaqeyn karayn waxaa lagu leeyahay ma wada shaqeyn karo waa intaas keliya horta fahma laakiin waxaa inaad fahantaan isku daya insha allah khayr bye bye